والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa waxa sharafi ah inaan halkan hambaliyo iyo mahadnaqba iyo salaamba uga gudbiyo jaaliyada Somaliland ee Bristol. waxaan si gaar ah idinku amaanayaa la idinkuna yaqaanaa horena la igu sheegay inaad tihiin jaaliyad midaysan oo arrimaha qaranka wax badan kala hadaba xusbiyo oo ka midaysan gaar ahaanna sida u maamustaan madaxda dalka muxaafid iyo mucaaridba waayo محافظ يا معارض شوكت معها معارض كيس لا يبغى ما أنت محافظ محافظ كمان تنا إنه معارض كبيرين نقطة ما لقى يابا كل كا وجوري قال استبدل جيونه ما هو لبعتها إن بهوين توعد ناوحنا السلام يا سيجارة madaxdooda dalkan aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga u cidba jaaliyada Somaliland ee Bristol waxaan salaamayaa salaan kal iyo laabta halkan ka soo jeedin maayo dhaliilo ku wajahan xukuumadda intii aan dhaliili karay waan dhaliilay هذا واحد بدنا نكون أمانة قرنينا وأنا أمان لها إلهي بيجوك لكن وحنكون كابا يعني أنا دليله هذا نوع كحبة كتير ضد بدن بتشيدي دليل شيء إس دليله ذو معارض كوالا دليل يا أنا قا حسب قا وعدا مالا دليل كرا دليل شو نوع استوسين وهذا هذا الكو نوع واحد عينه دير نهاي الصومالي ذا كله maanta reer muqdisho waxa laga wada hadlaa gacanta xabad baa laga wada hadlaa inaga waa afka ayaa barbar in la taraaro waxaan idhaahdaa meesha isaaq baa u badan Somaliland waa dadka ugu afxun ugu caloosha wanaagsan Soomaalida kolka inta calooshiina xumaan leeyahay afka ay xubaado horta waa idin sheegaya anigu u cidbaanahay waxaana laga yaabaa saddexda xisbiga aan u aqoon yahay dadkiisa inuu yahay marka laga saaro wixii aniga ila eeg iyo daadayda iga waaweyn waa xisbi dhalinyaro isaga badan dhalinyaraduna inta badan iyaga dadka waaweyn yaqaan dadka waaweyn dhalinyarada ma yaqaano marka ma murashaxa marka aan ku daro waxaan ku takhasusay oo khabiir ku ahay anigu kulmiye أساسينا وانا نكي صحيحي شنتي قفة صحيحي حسب مركي للديوان قال لنا أو صحيحة كل مية شرعيا وحكو ترى صحيحي إن صاحب ذي وان كسب بحصة مركي عن كل مية كبحية 6 وصل وجماعة بحي ما بحصة إن ما يتشعلين رنتي إن عن كبحه أحمد ما تشعلين أنت كلام ما يتشعلين صاحبه بدنو دي أنه هلقن كي سوى مرنبو وبدنا لما تشعلين كبحه لكن أنا شخصيا مركان قارو حساب تمي طبيعية وحنا هاي قف اسبدل دونا هذا أنا اسبدل دونا هاي نسيات برقور وما قاتين ولا ما تقالمين فرم مالنتا عن سياد برقور يقو قاتي إلى مالك ها مانتا وحن رادين يا وا اسبدل دتكو أنت بدن حسبية وحا يقولان أما السياسة الله قالها عاد مدح كل نقطة لكن أنا سياسة دوما قلنا المدح كل نقطة وحنا اسبدل دون مالتها عن كبحي بيد تضع وتريي إلهي نحرستي ترنها هسي أبوان لورن تري محمد ليمان شدير أي استقالة ضيدة كقرنا وهو حقه هي ده
cirka oo awaal guray hadduu ooga ka hilaaco ama khayfka geediga haddii lagu itaal guuro oon aradka doog loogu tegin waa afkala qaad buu yiri saaxiibada waxaan isku qabanay bariga waa sidan aynu wax u wadnaa dawladda inaga dhalataa ma noqon doonto mid ka tarjumaysa rabitaankii iyo dareenkii shacbiga ma noqon doonto mid ka tarjumaysa halgankii aynu soo galnay ee aynu magaalooyinkeena u burburinay ee ay boqolka kun qof inaga dhinteen dad badani runtii sidaa uma arkeen laakiin markii xukuumadii kulmiye helay inuu heliyana waan arkay ee xukuumadii la dhisay ee dabeedna ay cagta dhaqaaqday reer kulmiye way soo noqdeen intoodii ugu badnayd habeenka caawana wax badan oo reer kulmiye aniga isku diidanahay ma jiro waa kala qaadaa kulmiyaha ana aqoon xukuumadda iyo kulmiyaha ana qaan xusbiga labaas ma kala qaadaa kulmiyaha xusbiga ee ay Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin hogaaminayaan waxaan isku diidanahay aniga ma jiro waa laga yaabaa siyaasadda inaanu aragti ka nahay laakiin maanta in midhihii halgankuba ay halis ku jiraan rag badan oo kulmiyaha waan isla qaraynaa waxa ugu xun ee anigu aan diidaana ama halkan ku diidanahay waxa weeye waxa la yiraahdo guulwadaynta oo ah dad guran oo waxa laaliyo waxay ummadda iyo dalka u tarayaan jirno inta lacag loo qaybiyo dadka lagu majra habaabiyo taa anu waan nacibahay waayo waxay beeraan dictatorada kelitaasku isma sameeyo waa la sameeyaa dadka sameeya waxaan ogaaday dadka sameeya inay ugu badan yihiin isaaq haddaad runta ka cararto oo aad ummadaada diido in aad shacabka haloo ii garaaco oo waxba qaldan yaan la odhanin aad tiraa waad lumaysaa mucaaridka waxa u baahan dawladda kuwa talada haya u baahan waana dimuqraadiyadu inay sidaa u socotaayo ay dhaliil iyo isdaliilid noqotaa oo dhaliilaha mucaaridka ay noqdaan wax toosin xukuumadan way dulqaad yar tahay oo anigu ma jeclin aad u taataabto way isla toosan tahay isla toosan baan idhaayo ma jecli siibana aniga waxa la iigu qabsadaa haddaan aad wax u yara taataabto markii ugu horreysay taariikhdayda waxa la yiraahdaa reer hebel buu nacibi reer aan nacibi hayna ma jiro xukuumadana reer uma arko waxaan ku celceliyay waar kulmiye waa la hafrayaa waxba muu helin oo de waan garan lahaa xukuumad kulmiye laga dhisay waar mujaahidiintii SNM ee madaxweynaha Somaliland uu gudoomiyaha u ahaa waa la hafrayaa waxba ma helin waan garan lahaa haday mujaahidiin hesho waxa ka soo galay xukuumadda Maxamed Xaashi Cilmi iyo Booba Yuusuf Tacaali labaas xukuumadda laga soo daray labadiina dibadda la dhigay miyaan qaadan karaa Maxamed Xaashi iyo Booba waxay ka xun yihiin wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka duulista hawada iyo wasiirka macdanta ee shidaalkii sameeyay wasiirka ciyaaraha hadday kuna ku kufrayso kuna ku muslimsan qaadan maayaan waxaan jecelahay in halka u dhaafo de kulli socotada ma la wareystaa in kastoo loo bilood la joogay arrimaha taagan ama waxa loo yaqaan current issues aan in yar iyagana wax ka taabto waxa ugu mudan ee taagan waxa weeye 84 xil ee ugu mudnaa talada Soomaaliland markay tahay ayaa badka yaala hadii Allahu ka dhigo kal dambe wax sanad ka dhiman ba sanad iyo ayaama ka harsan doorashada inay qabsoomaan ilaa iyo hadda iskuma aanu isku diidnay ma jiro muddo sanad ah
ayaanu ka soo wada shaqaynaynay waxaan si gaar ah ugu amaanayaa xusbiga kulmiye kaalintii uu nagala qaatay arrimihii ay ku xidhnayd inay doorashooyinku dhacaan oo ay waqtigooda ku dhacaan arrinta ugu weyn waxay ahayd baqaha laga qabay in doorashooyinkaasi ay dib uga dhici karaan waxay ahayd diiwaangelin iyo civic registration tirakoob la doonayay in la ishuwiyo oo la isku dhajiyo tirakoobkuna wuxuu ku wanaagsan yahay waqti salka dhulka lagu hayo oo aan xilli doorashooyin soo gelayaan hayne dee marka madaxweyne la doorto maalintaa inuu bilaabo civic registrationka oo ay iska socoto xafiiskii registrationka la sameeyo oo aan doorasho loo sameyn haddii kale waxay qaribaysaa diiwaangelinta codbixiyayaasha muddaanu isku haysanay annagoo xisbiyada qaranka xukuumadda komishanka doorashooyinka iyo daneeyayaasha Somaliland dimuqraadiyadda oo uu hormood ka yahay ama ka tahay dawladdan Ingiriiska iyo EU sanad baan isku jirnay aakhirkii wala socotaan waxaanu isugu guurnay in civic registration kursiisa isaga socdo xukuumaddu wadato xilal la qaban karnaa la qabto diiwaangelinta codbixiyayaashana ay noqoto mas'uuliyad inta iyadaasi aan wada leenahay oo dhaqaalaheedii uu madaxweynuhu intii kaga soo beegnayd bixiyay oo bulshada EU ay intii kale bixisay oo nidaamkii ay u dhacaysay iyo xiliyadeedii la galay waxaanu anagu hoosta ka xariiqnay 31 bisha December in muwaadin wal oo Somaliland oo diyaar u ah inuu doorashada ka qayb galaaba oo haysto kaarkiisii diiwaangelinta doorashooyinkuna bisha June ay dhacaan farsamo ahaan sidee wada dhacayaan doorashada wakiilada iyo madaxweynuhuba ilaa iyo hadda dhuxdhux mooyee safarkii imika halkaas aanu isla marin meel wanaagsan bay ahayd waanu isla wada ogolahay waanu isla wada ogolay imika ma oran karayaan qolada inay dad kale wax soo farfaraan oo yiraahdaan odaga ha loo kordhiyo dhahayo mooyaane marka ilaa hadda anagu shaki kama qabno waanaanu ku talagaleynaa inay doorashooyinkaasi dhacaan kal dambe hadii Allah yiraahdo waxa kale oo aan doonayaa inaan iyadana in yar ka sheego dhaqdhaqaaqyada ka socda Sanaag bari nabadgelyo iyo siyaasad bale ama ciidan iyo siyaasad bale hadii ujeedadu ay tahay marka xagga siyaasadaba mid ku wajahan Somaliland isu dhan haday taa u adeegayaan talaabooyinka ka socda Sanaag bari si fiican baan u taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa mar labaad iyo ujeedo kale haday ku wajahan yihiin in kastoo ay xukuumaddu iyadu kaligeedu wax iska wadato oo ay dadkan inay muwaadiniin yihiin iyo xisbiyadan talada wax ku leeyihiin iyo waxa iyadu aanay u joojin haddana anaga u joojinayna oo leh hadii ay jirto cid ku soo xudgudubtay xuduudda Somaliland ciidan ahaan oo aan reer Somaliland ahayn iyo madaxweyne Puntland oo imanaya Somaliland oo aanu taalifteeda waragno ku xadgudub haday taa tahay jawaabtu xukuumaddu ay bixinaysa ee ciidanka loo geeyay meesha iyada lafteedana waa soo dhaweynaynaa waana ku taageeraynaa taageerada iyadu waxay ku xidhnaanaysaa mar walba natiijooyinka ka soo baxa dhaqdhaqaaqyada hadii la sii cararo hadana berito qolo kale iska tirto aan deewa sii soco laakiin waxaanu leenahay hadii natiijooyin wax ku ool oo dalkan iyo dadkan wax u taraya dhaqdhaqaaqyadiinaasi ay soo saaraan si fiican ku taageeraynaa waxaan halkaa uga sii gudbayaa safarkii madaxweynaha wasiirka caafimaadka saaxiibkay Cabdilaahi Cukuse oo cisbad wasiirka warfaafinta saaxiibkay Cukuse oo cisbatal jiifa Allah u sahleen aan horena ugu diray in
udduceeyay ayaa sariirtii u jiifay dushiisa isagoo buka lagu wareystay safarkii madaxweynaha waxa la leeyahay siyaasad buu ahaayee maxaa ka jira baa la yidhi isagoo bukuu Faysal Cali Waraabe yidhi wuu bukaa jawaabta Cabdilaahi Dibnahayga saaranta laakiin waanu dhaafayaa saaxiibkay waxaan saleeyahay war aragtida ka jawaaba waxa la idin yiri dad baa u arkaya inuu siyaasadaha war inuu siyaasadaha waxa ku filayd inuu yiri Cabdilaahi dadkaasi way qaldan yihiin ee wuxuu ahaa uu koorgal uu madaxweynuhu u koorgalayay gobolada simbalita sakfil inuu cay bilaabo oo muraayad isagoo aqal muraayada ku jira tuurtuuriyada laba deemida soo galaan ama adkaysin hore ha yeeshaan ama afeef hore yeeshaan ama adkaysin dambe anagu saan u aragno socdaalka madaxweynaha fariin baan u arkaynay ku socota shacbiga Somaliland gaar ahaan ku socota labada xisbi mucaarid fariinta qaybteeda hore waxay oranaysaa madaxweynihii waa arkaysaan bariye dhaweeyta halka aniga jooga ayaa la igu yiri madaxweynihii uu xanuunsanayaayo Jarmal baba lagu qalaya isagoo London la jooga waxa igu kaliftay inaan la xiriiro liaison office-ka u jooga Somaliland London oo ii xaqiijiyay inay been tahay marka xamba jirtay laga dayrinayay caafimaadka odayga xambay in la tuso dadka inay xantaasi been ahayd ee uu ka caafimaadka qaba safarka uu galayna safar nin jilcisan geli karayo runtii ma ahayn waa qiraya oo aniga laftaydu isma lahayn odaygu inta uu geli karaya marka taa caafimaadka kama xumin waxaan leenahay ilaahay caafimaadkiisa ha u sii siyaadiyo ilaahay madaxweynaha caafimaadkiisa ha u sii siyaadiyaan leenahay fariinta qaybteeda dambe waxay oranaysaa dee waa kaas odaygu wuu sii talin karayaa 2 sanood loo kordhiyo taana waxaan leeyahay ha ku riyoonina wayni sogeyn ballan habeenimo ka caruuriyu leeyahay madaxweynuhu waxa uu khudbad sanadeedkiisii ku cadeeyay in aanu diyaar u ahayn muddadii umadaasi ay dooratay inuu maalin ku darsado meedala kalena wuu ka yiri bulshada caalamka markii aanu doorashooyinka hawlaheeda ku jirnayna wuu xaqiijiyay inay doorashooyinkaasi waqtigoodii ku dhacaan isaga shakhsiyan way ka go'antay laakiin waxaan isweydiinayaa intee isaga talada ugu jirta madaxweyne been baad sheegaysaa waa lagu kordhinayaa waad ku qasbantahay weey waayo anagu xageenu tagaynaa hadii aanad aragto anaguna waxaan arkaa inay guul tahay hadii ay 26 Juun ee kal dambe doorashadu dhacdo guul inay u tahay madaxweynaha oo guul waxay ugu noqonaysaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee muddadii xilkii loo doortay ku dhameystay ee ama helay ama laga helay waxaan markaa doorashadaasi 84 mudane reer Somaliland oo halkan waxaan shacbiga Somaliland uga gudbinayaa taladiina 84 qof bay ku xidhantay 84 kiiba inaad doorataan oo gacmiina ama midida isku mareysaan ama isku badbaadisaan khadka yar iyo gacantiinaas ku xidhantay hadaa ardaayo u qaybsanaysaan baarlamaankiina waa aragteen noocu yahay baarlamaankiina waa ka maanta oo dhan intuu akhriyo wax diido oo 15 cisho yeeli beenado oo dhaliilo wado habeenka dambana inta la isoo yara kharash la isoo dhibo subaxii gacantaag war wixii u daraado dhan ninkii daafacayo ku hadlay ee uu lahaa ismeel isnaqli waa dadka noocaas inaga keenay inagaana inaga yimaadeen inagaana inaga mid yihiin hadaynu doonayno waana sharci dejinteeni hadaynu doonayno inaynu helo dad hagaagsan way naga buuxaan hadaynu qabyaalad wax ku dooranayna xataa reerkii bay ku wada jiraan labadiba mushkiladu waxa weeye kii xumaana uu soo horeeya
kii wanaagsanaa dib u fadhiya haddii dib u fadhiistaan dadkii wanaagsanaayo dhami talada dib uga fadhiistaan oo ay raaca karkana inta meel saddex xusba ay reer hebel oo codkan ku helayayo digdigta waxay noqonaysaa cid aad canaanataa ma jira aad gacantaada ku samaystay madaxtooyada lafteeduna waa sida uun si leeg anagu waa soo dhaweynaynaa haddii kulmiye odayga soo sharaxayo waa la tartamaynaa hadduu helo waa ku hambalyeynayna hadduu ka wadani helo waa ku hambalyeynayna annaguna haddaanu helo in lagu habeeleeyo baan doonaynaa laakiin waxaanaan marnaba yeelin muddo kordhin aan sharci ahayn oo lid ku ah dastuurkeena oo ku gaboodfal ku ah shuruucda dalka u taalo oo dhan oo aanu madaxweynuhu wadan oo aanay xusbiyadu qaranku wadan oo aan cid wada taajirin koox yar mooyaan kooxda yar ee ku xeeran oo kaliya wadada waxaanu leenahay wadankana ha gelinina dhibaatooyin aanu baahnayn iyo khalkhal aniga markii igu daran baan idin sheegayaa markaan talada maanta eego saddex mujaahid na halkan fariin baan uga gudbinayaa waan soo wada halganay mid waa Axmed Maxamed Silaayo madaxweynaheena ka kalena waxa weeye Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin oo isku xiga saddexdooda mujaahid Soomaa umadeena iyo halgankii aynu soo galay iyo wixii dad inaga dhintay wixii aynu u dagaalameynay muxuu ahaa horta inaynu isweydiinaa baynu u baahannahay anigu waxaan leeyahay maanta fariinta ay gudbinaysa xukuumaddani waxa weeye waxaa loo soo dagaalamay wixii laga dagaalamay waxaana keenaysa guulwadaynta keenaysa in wixii loo dagaalamay uu noqdo waxa laga dagaalamay waxa weeye ummadda dhan taariikhdeedii iyo halgankeedii baa been laga dhigaya ragga ka dhigayaana way garanayaan wallahi way garanayaan waanay u bareerayaan inay taariikhdii ummadda dhan beenayaan waayo waxay arkayaan halgan aanay waxba ku lahayn halgan aanay midhiisa waxba ku soo darsan khabiisyo yar oo gaagaaban bay iska soo xidhanayaan oo shalayna waxayna lahaayeen Siraaye iyo Siyaad Barre waa laba daaqood wallahi kuwii lahaa madaxtooyada ka buuxaan war adigu soo digi lahaa Siraayana waa daaqood Siyaad Barre waa daaqood ha goormaad noqotay ha marka waxa weeye waxaan leeyahay fariin qaldan baa xukuumad ahaan ay soo gudbinaysaa xukuumadda kulmiye ee halgankii ummadani saxbu ahaa waxay u soo dagaalamaysaa jiritaankeedii iyo nolosheedu ahaa waxay u hortayna dhiigeedii iyo dadkeedii iyo dalkeedii buu ahaa ha ka dhigina wuxuu yiri ilaahay naxariisteena siiyay abwaankii Qaasim berigi kacaanka laba kacaliyay ayaa wuxuu markii talada habar saalay iyo sabiya loo dhiibay ayaa sayn cadaa iyo ragi sabiq dhaqaaqeen Siyaad Barre wuxuu dilay markii uu eegayay bal hada qoriga inuu shaqeynayo saddex reer ee madaxa taaga Soomaalida ayuu saddex nin ka dilay wuxuu dilay Salaad Gabire Kadiye oo abgaala oo nin hawiye ahaa Aynaanshe oo nin Isaaqa oo habar Yuunus ahaa iyo Dheel Cabdiqaadir Dheel oo nin daarooda oo majeerteera ahaa anigu bariga ciyaarahan u tagnay gobolada oo waxa la yiri kaalay barka daawado oo tiyo sabadiido daweyn baa ku dhigan la qaadayo markay soo baxdayna saddexdaas ay ku soo baxday ayaa dadkii oo tiirar lagu xidhay oo la tooganayo markay waxba dhici waayeen waxay noqotay in ay ku socoto oo dadkii la cabiidiyo oo laga dhigo waxaan guulahayn guula looga dhigo af Soomaaliga baa la qoro 70 waxa la leeyahay wixii af Ingiriisi iyo wax ku qoriyay si looga maarmo la yiri wada sameeyo gulwadayaal baa loo dhiibay annagoo bayskoodaho Ingiriiskuna tababaray ayaa masarka iyaga yaraasoo wixii dambe gulwadayaal loo xidho markaasaanu daadinay war wadadan waa lagu lumaa sacabka khaliga ah annaga intaydaan soo gaadhin gudihiina ka xisaabtan waan leeyahay xukuumadda rag badan baa ku jira xukuumadda oo aqoon leh oo mutacalimiin oo aniga iga cilmi badan oo iga aqoon badan laakiin ka saamixi maysa taariikhdu in aanay ka hadal waxaan guulwadaynta la yiraahdo
بالتلفزيون ذي يو حاجة تاني ده عادهني كويس ياد بريكا سيدري وحن أمد اللوجة وريريني يا وركراسة والهلا عدكنا ويمانيا إلهي قفكو قرنا ويمانيا لكن وإن إنه حسكجوه أن رير سومالي لانو وحي إنه كتقالنا habdhaqan kii xukuumadii siyaad barana waa inaan ka dhigan qurux iyo amaan iyo wanaag anigu taas ayaa saddexaad wali u faraya hadii kala de mujaahidiin meena wada ahayn cid ay mujaahidiin hay'adee mawti ugu dambeystii waxaan mar kale hambalyeynaya anaga xisbi ahaan u cid qabiyo badan baa noo taal waan ogahay meelo badan bay faruhu naga godan yihiin ilaahayna haduu caalguri soo dhaxgeliyay waliba waan ku tala jiraa inaanu toosino oo sawir ka qurux badan intan maanta u dhigno laakiin markaan haddana saddexda xusbi eego rajadaydu ma xuma u cid mustaqbalka dheer waxaan ku idhaahdaa reer kulmiye waar haddii meesha laydinku soo adkaado oo laydin rawaxiyo geediga ugu gaaban waxaa la yidhaha daldalasho geedi dheer laba guuri maysaane waa daldalasho amba laba tallaabaan ku gaadhay oo cide idina laba tallaabun ba kusoo gaadhaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi